webiga Shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyay dhanka bari ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Mas'uuliyiinta gobolka, ciidamada amniga iyo bulshada magaalada ayaa ku jira dadaal xoogan oo lagu joojinayo fatahaadda webiga. Warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheenna Ibrahim Cali Nuur. waxaa socda dadaalo lagu xakameynayo fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyay dhanka bari ee magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Horseed oo ay gaareen biyo aad u fara badan oo webiga ka baxay. biyaha webiga ayaa sababay in qoysas fara badan guryahooda uga tagaan, sidoo kale waxay sababeen in maanta la fasaxo iskuulka Horseed kadib markii ay galeen iskuulka biyaha fatahaadda ah. Mas'uuliyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe, kan degmada Jowhar, xildhibaano iyo bulshada ku nool magaalada ayaana u kala harin wax ka qabashada fatahaadda webiga Shabeelle. qaar ka mid ah dhalinyarada howlaha gurmadka wado ayaa iga waramay halkii ay marayaan howlaha gurmadka ay wadaan. ilaahay baan uga mahadnaqaynaa dhibaatada maanta dhacday. alxamdulilah waan ugu shukrinaa ilaahay mahad u sugnaatay oo hadda noo sakhiray maaragtay xoog 75% hawsha hadda inta waa qabsanay. dhibaatada meesha ka dhacday maanta aad arkaysaan shalay ay bilaabatay. shalay 7 saac iyo bar dooradii ay bilaabatay. aadtana saan ku dawaysna xalay 7 saac iyo bar meesha aan ka tagnay. saaki haddana salaadii daan soo dukanay ku soo laabanay. alxamdulilah ilaaha mahad iska leh. waxaa meeshaan ka dhacay waxa waaye masiibo fatahaad webiga Shabeelle. wuxuu ka baxay shalito bacdal duhur ayuu wuxuu ka soo fatahay meesha Horseed u dhaweed oo loo yaqaan Iskarafundo. marka shalay ilaa iyo xali cid u kala hartimo leh haday ahaa lahaayeen maamulka gobolka, degmada, dhalinyarada, habeenka shaqa laga hayay meeshii. alxamdulilah hadda uu soo gabagabowday waxa dhiman wax yar waaye. meeshan waxa ka dhacday masiibo rabaani ah oo fatahaadda webiga ah. si wada jir ayaa wax loo wada qabtay. meeshan waxay u baahan tahay in la is wada kaashto. alxamdulilah 80% waa lagu dadaalay. hadda 20 ka dhiman. 100 guri ka badan ay xal biyo galeen saacadooyin gudaheeda. marka waxaan u baaqayaa ummadda reer Jowhar inay gacmaha is qabsadaan, webiga iska wada difaacaan, biyo-baxdan iska qabtaan, gacmooda jir bay wax ku qabtaan. dhinaca kale, dumarka ku dhaqan magaalada Jowhar oo ayagana qayb ka ah howlaha gurmadka ah ayaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow Colow waxay ugu baaqday haweenka inay u istaagaan ka qayb qaadashada howlaha gurmadka hadda socda. dhibaatada maanta jirta haddaan gacan aan la iska siinin oo qof walba maanta qof kale waxay ku kaabi kartaa loorba ha naqatee aan ku kaabno oo muxuu ahayd garab joogsano bulshada dhibaatoon oo muxuu ahayd gacan siino midda liidata oo maanta aan muxuu ahayd cunugeeda aan ka baxsan karno biyi guriga intuu la galeen ay ilmihii uga baqtinayaan. waxaan leenahay baaq ugu jeedinaa gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u soo gurmadaan gobolka Shabeellada Dhexe dadka u dhasho kulli. gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtaar Baari ayaa sheegay inay jiraan dad ay gacantooda ku daaya webiga cidii ay ku tuhmaana inay sharciga la tiigsan doonaan. marna biyi ilaahay khayraadkana sii ay dad kale calooshooda u shaqaystayaal ay waxay rabaan inay loo adeegsado $100 ay ku qaataan ay deeyaan maxaa la dhihi jiray fatahaad ay deeyaan. kuwaas waa u diga xataa haddii lagu tuhmaayo tuhum naga galo oo la yidhaahdo hebel ayaa lagu tuhmaa inuu biyo deeyo la yidhaahdo, wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaan la tiigsanaynaa sharciga. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxaan marsiinaynaa sharciga. Ibrahim Cali Nuur, telefishinka caalamiga Universal, caasimadda Hirshabeelle, Jowhar.